السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا شرفت لسود وهذا وعشرة نتحنا هاي برشاد الصلاة وعشر كأفراد برشاد الصلاة. عشر كانوا قبل الله وضعنا صلاة حلقة عبسدة للتكدو وقاميو عيدنا كلابا أيو قيبنا سي وهلا فضلك يواناجي أي لهاد إن صلاة اللي تكدو جميعا ما كوح فضلك صاح إن كوح لحرته إمامك كوحنا لسه منقصته إمامك صلاة حلقة عبسدة صلاة واجبك وحال lagu soo gaabinayaa laba ragcadood markii uu dagaal socdo sidii salaada safarka oo kale xilliga ay goobaha dagaalka cabsidu ka jirto waxa salaadii waajibka ay ciidamada u tukan karaan saddex qaab qaabka koobaad hadii cadowgu ciidanka ka xigo jiha aan ahayn jihada qiblada hogaamiye wuxuu u kala qaybinayaa ciidanka laba kooxood kooxda hore waxay galayaan difaac kooxda labaadna waxay la tukanayaan hogaamiyaha qaabka ay salaad u tukanayaan hogaamiye wuxuu salaada tujinayaa kooxdii la tukanaysay ragcad marka uu gaaro ragcadaasi sujuudeeda u dambaysa halkii uu ka kici lahaa ragcadii labaad wuxuu ku nasanayaa fadhiga dabadeed ciidanka kooxdii hogaamiyaha la tukanaysay iyagu waxay u kacayaan ragcadii labaad kadibna si fudud ayay u dhameystirayaan ragcada labaad wayna salaam naqsanayaan kadibna waxay wardiinayaan kooxdii labaad ee difaaca imaamkii salaad wuxuu u kacayaa ragcadii labaad kadibna ciidankii kooxdii labaad ayaa ku xiranaya ragcadaasi oo ciidanka u noqonaysa ragcadii labaad kadibna marka ragcadaasi imaamku gaaro sujuudi u dambeysay wuu ka baxayaa laakiin ciidankii la tukanayo iyagu waxay u kacayaan ragcadii labaad sidaas ayay iyaguna ku dhameystiranayaan labadooda ragcadood qaabka labaad hadii cadowgu ka xigo ciidanka qiblada hogaamiye wuxuu ciidanka u gelinayaa laba saf oo kala dambeeya dabadeedna salaada ayuu xiranayaa marka uu imaamku sujuudo waxa la sujuudaysa labadii saf midkood safka kalena wuxuu sii taagnaanayaa iyaga oo ciidanka ka ilaalinaya cadowga quraan wax ku eegayaan sida ay wax socdaan marka uu sujuuda imaamku ka soo tooso ayay kooxdii kalena sujuudayaan marka sidaas ay u dhameysanayaan labadii safba salaadoodii qaabka saddexaad hadii dagaalku sida ka sii adkaadana waxay u tukanayaan hadba sidii suurtagal ah Tibian College for Languages and Maths qalikii waxbarashadu qiimaha ay leeyihiin qaadir baa tilmaamo quraanka cadeeyo qasnad weeye buuxdo qofkii helay ku faa'iido aan qeexo hadalkooda aan ka qaaday qolqolkii ardayga iyo adoo qoyska joogiyo marad hawlo qabanood qorshe maalintii aad qaybtood ku maqan tahay cilmi qaybihiisa iyo qubanaha uu leeyahay English la kala qalay qusuusiga af Carabiga qaamuusyadoodiyo afka hooyay qaaliga xisaab la isku qoofalay qurxunta iyo dhigaalka qoton loo adyaabtiyo aqoon loo qoshuuca qormada ay ku idishahay waa Tibian College for Languages and Maths online college-kan oo online waxbarashada lagu bixinayo ayaa duruusta uu bixinayo waxa kamid ah English, Arabi, Somali, xisaab, handwriting of English iyo handwriting of Arabic. Duruustaasi waxa bixinaya macallimiin khibrad iyo aqoon dheer u leh. Meel kasta oo joogsana waad ka faa'iideysan karaysaa. Hab online ayaad ku helaysaa. Haddaba la xiriir Tibian College for Languages and Maths isdiiwaangeli oo garaac telefoonada 4144 iyo eber 65 4144 nambarka waxbarashadu waa eber 252 63 4144 ha mogaanina Tibian College maxaa la xiran karaa ragga waxaa ka xaran xirashada dharka xiriirta hadii dharka lagu daro ama lagu dhaxtalo in yar oo xiriir way xiran karaan raggu fargal dahabka intiisa yar iyo intiisa badaniba waa isku mid xagga xaaraannimada dumarka waxaa xalaal u xirashada dharka xiriirta iyo xirashada dahabka meydka iyo arrimaha la xiriira qofku markuu geeriyoodo dadkii muslimiinta ahaa uu la noolaa waxa waajib ku noqonaya afar shay
kow in ay meydka dhaqaan, labo in ay meydka karfanaan, saddex in ay meydka ku tukadaan, afar in ay meydka aasaan. Laba meyd lama mayro lagumana tukado. Shahiidka qofka ku dhinta dagaalka gaalada lagula jiro, iyo dhiciska ilmaha yar ee soo dhasha isagoo meyd ah. Qaabka loo mayro meydka waa sidan: meydka waxaa la mayrayaa tiro la kala dhiman. Mayriga ugu horeeya waxaa biyaha loo raacinayaa geedka sidriga ama qisil. Mayriga ugu dambeeya waxaa biyaha loo raacinayaa geedka kaafuurka. Waxaa lagu karfanayaa ama loo xirayaa 3 maro oo cadcad oo fidsan ama aan la isku tulin. Qaabka salaada loogu tukanayo meydka waa sidan: imaamku wuxuu oranayaa 4 jeer Allahu Akbar. Allahu Akbar koobaad. Imaamku iyo dadka ku daba tukanaya waxay hoos u aqrinayaan Faatixada. Allahu Akbar labaad. Imaamka iyo dadka ku daba tukanayana waxay hoos u aqrinayaan saliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Allahu Akbar saddexaad. Imaamka iyo dadka salaada ku tukanaya waxay hoos u aqrinayaan ducadani. Allahu Akbar afraad. Imaamka iyo dadka ku daba tukanaya waxay hoos u aqrinayaan ducadani kooban, kadibna iyada oo la taagan yahay ayaa la salaam naqsanaya. Qaabka loo aasayo meydku waa sidan: xabaasha dhererkeeda waxaa laga dhigayaa 1 joog iyo xoogaa. Marka meydka la gelinayo xabaasha, waa in madaxiisa lagu horeysiiyo xabaasha. Waa in meydka si dhibirsan ay ula kala wareegaan qolada xabaasha ku jirta iyo qolada dusha ka taagan. Waa in qofka ilka dhigaya meydka uu akhriyo ducadani. Qaabka xabaashu u ekaanayso waa sidani: waa in ciidda xabaasha dusha laga saarayo aan la tuurin ee hareer loo badiyo. Waa in aan xabaasha waxba lagu dul dhisan, in aan la marin nuurad iyo wixii la mid ah. Waa in aan magac iyo taariikh midna lagu qorin xabaasha. Waxaa la ogol yahay in qofku xabaasha qofkiisa uu ku calaamadeysto geed qoyan, dhagax iyo wixii la mid ah. Maxaa keena in qofka lagu cadaabo xabaasha? 1 gaalnimo, 2 munaafiqnimo, 3 isku diridda dadka, 4 kaadida oo la iska nadiifin waayo, 5 xoolaha dadka oo la musuqmaasuqo, 6 iyo xanta. Way banaantahay in uu qof u murugoodo meydka, laakiin lama ogola in loo bararto. Taxsuudu waxay soconaysaa 3 cisho. Waxaa laga soo bilaabayaa tirinteeda maalinta la aaso meydka. Tacsi ama barodiiq waa in qofkii dhintay ehelkiisa la booqdo oo lala soo wadaago murugada, oo loogu soo duceeyo in uu Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo qofka ka dhintay. Lama ogola in 2 meyd lagu wada aaso xabaal kaliya haddii aysan duruufi kalifin. Duruuftaasi waxay noqon kartaa dhulkii dadka lagu aasayay oo yaraaday, meydadka oo tiradoodu bataan, iyo wixii la midka ah. Shakeenahay barashada salaada halkaas ayuu inoogu dhamaaday. Insha Allah waxaan noo bilaabi doonaa barashada cashirka soonka. Waxaan nagu xigto barashada sekada, laakiin waxaan kasoo mari doonaa barashada soonka maadaama aan ku jirin bir Ramadaan oo Ramadaankina oo gabagabo ku jira. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.